walaalayaal maantana cashirkeena waxaan kusoo qaadanaynaa isticmaalka ereyga if ee functionka ah ee excelka ka midka iyo isticmaalka minuska kala jarista waxyaabaha ama xisaabaha excelka. haddaba aan ku bilownay waxaan halkan ku haystaa waan ku bilaabayaa if. haddaba marka aad isticmaalaysid ama aad buuxinaysid foomamka natiijooyinka imtixaanaadka oo kale ama xisaabo isku aadan oo haddii uu xisaab badato xisaabta kale natiijadeedu ay noqonayso magacaad ula bixaysid automatically ay soo saarayso natiijaha wuu dhacay ama wuu baasay iyo wax la mida. haddaba aan idhaahdo natiijada haddii ay tahay 50 mukhtaar natiijadiisa isla mukhtaar kale oo isna 50 iyo ama 60 mid kalena 45 ku kalena halkan uu 30 adiga natiijooyin sidaas camal ah hadday dhammaantoodba wadaagaan markaan isticmaalno functionka if waxaad keeni kartaa adoo horteeda ama meesha aad ka rabtid natiijooyinka adoo sameynaya is equal functionkanna isticmaalaya if adoo taabanaya function fta halkaas ku taala f yar oo xna wadata ay halkaa ku taalo adoo taabanaya halkaas waxaad ka xoranaysaa box ka soo baxaya oo ku dhahaya insert function baa ku qoran waxaad ka xoranaysaa if adoo double click ku sameynaya ama okay taabanaya waa isku mid. intaa kadib wuxuu ku weydiinayaa logical test. haddaba logical test ayuu ku weydiin doonaa. logical test waxaad leedahay markii 50 oo b2 ah ay ka yar tahay greater than ay ka yar tahay 50 waxay valuega la mid tahay ama ay noqonaysaa dhacay. halkaas waxaa ku qoraysaa dhacay ama baasay. haddii ay false tahayna baasay. markaan okay ku niraahdo qofkan 50 buu keensaday micnaheedu wuxuu tahay wuu baasay. 50ka meesha inoogu qoran waxaa la yimid mukhtaar 50 maadaama uu la yimid buundo waa uu baasay. mukhtaar wuxuu keensaday 50 waana uu baasay. marka si aan ku taxliilino oo si fiican aan idinkugu fahamsiiyo waan kusoo celinaynaa 50kan mukhtaar uu la yimid haddaan ku bedelno 30 isla weli mukhtaar waa baasay. sababta ay ku timidna waxaan isticmaalay greater than marka less than aan isticmaalno oo okayna aan niraahdo marka mukhtaar markaas wuu dhacay sababtoo 50 buu ka yaryahay. hadda greater than waa ka badan tahay marka hadduu ka badan yahay ama ka yaryahay bay calaamad ahaan meeshaas u taallaa. marka natiijada uu la yimid mukhtaar waa 30 maadaama 30 uu keensaday buundo waa uu dhacay. haddii la yidhaahdo 60 buu keensadayna wuu baasay. marka automatically waxay u shaqaynaysaa si automatiga. aan soo jiidno oo dhammaantoodba ku heeraarayna marka xisaabaadka dhan wixii dhacay iyo wixii baasayba oo isku dardarsan. hadda 60ka meesha ah wuu baasay baa ku qoran halka 45 ay ka tahayna wuu dhacay. marka haddii 45ta lagu dhigo 100 waxaa imaanaysa wuu baasay. markaan ku soo celino oo isticmaalno from 0 aan 0 ka soo bilaabno xisaabteenna natiijada waxaan ka bilaabanaynaa mukhtaar wuxuu haystaa 10 buundo. 10kii buundo oo uu keensaday waxaan rabnaa in excelku uu yidhaahdo mukhtaar waa dhacay. waxaan leenahay marka isticmaal function insert function. marka functionka waa equal
equalka halkaa ku qoran baa functionka ku yimid marka waxaan ka xulanaynaa box ka soo baxaya ee dhahaya insert function waxaan ka xulanaynaa if ama laba mar dhagdhag sii ama ifta xulo oo hal mar okay dheh waxay isu beddelaysaa boxkan kale ee hadda kuu soo baxay oo dhahaya function arguments marka logical test waxay nooga baahan tahay inaan xulano columnka inaan soo xulano hadda waa c inaan resultiga b ku jira inaan sheegno ama aan xulano number 2 kaga aadan yahay marka inaan taabano hal mar klik siino meesha 10ka ah markaad dhag siiso function argument waxaa gelaya b2 sababtoo ah b waaye dhinacanna wuxuu ka yahay 2 marka haddii lasu daro waa b2 marka if haddii b2 hadday ka yar tahay oo lesson ay tahay natiijadeedu ay ka yar tahay 60 hadduu la yimaado b2 columnka ah 60 hadduu la yimaado waxay noqonaysaa baan leenahay dhacay ama valid ama dhacay Soomaaliyan marka dhacay baa halkan ku qoranay haddii laakiin aanay ka yareyn 60 buundadiisa baasay ama baasay qofkaas waa baasay baan masala halkaas ka wadanaa marka okay halkan okay ku dheh ama enter taa waa isku mid marka qofkan maadaama uu 10 ka yar yahay waa dhacay waxaa noo sheegaya marka excel xagee noogu micnana is equal if b2 hadday b2 ka yar tahay less than waaye 60 ay ka yar tahay dhacay iyo baasayba marka asaa kala xulanayo wuxuu dhahay marka dhacay waa dhacay haddii aan bedelno tan oo aan ku bedelno 80 oo enter dhahno baasay baa isu bedeshay automatic si aan maanta oo dhan u bedelin oo isagu isu bedelo marka calaamadan geeskan ka qabanaynaa waxaan geynaynaa ilaa halaha excelka oo inoogu heeraarsan inta magacyada ah ayaan la sameynaa marka kuwan kale ee 00 da dhacay baa ku saxan marka 100 aan gelino aan ku tijaabino enter kaas waa baasay baa la dhahay kan 55 aan gelino waa dhacay 75 waa baasay waa sidaas oo kale adiga ilaa iyo intaa rabto 900 marka halkaa waxaan ku fahmay adeegsiga if fadlan haddii aadan si fiican u fahmin kusoo cesho videoga waa adeegsiga intaas waxay ku fahmnay adeegsiga if waxaa halkan ku xusnaa magac iyo natiijo magac result waxaan ka wadnay natiijo magac iyo natiijo halkan qofkan wuxuu la yimid buundooyinkan marka wuxuu noqdayna waa dhacay iyo baasayba wuu kala saaraya markaas excelka adigoo aan u baahan waxaa inta ku fahmnay marka adeegsiga if waxaa inoo xigaya cashirkeena ku xiga waa if adeegsiga minus kala jarista maalan waxaan deyn ku leenahay ninka la yidhahdo xasan marka magac baan adeegsanaynaa magac qaatay ninkii waxa qaatay baa hadhow magaciisa imaanaya meeshaas waxaa ku xijinaynaa dhiibay lacala hadduu dhiibo qofkaas muddo kadib marka hadduu wixii dhiibay qofkii wadartii wixii soo haray ee markaas ninkaas ku haray oo kale intuu dhiibay iyo intii ku hartay baa halkan ka muuqata magaca waxaa la yidhahdaa xasan wuxuu qaatay 500 wuxuu markaas dhiibay 200 oo ka mid ah 500